shirkan oo lagu qabto hoolka shirarka duqa ismaamulka Diridhabe ayaa waxa uu ahaa mid ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameed ka kala socday Soomaalida iyo Oromada halka odayaal dhaqameedka ka socday Soomaalida uu hogaaminayay ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim sidoo kale Abdul Malik Yunis oo ah abaagadaga Oromada ayaa isaguna hogaaminayay duqeyda ka socotay Oromada shirka waxa ugu horeyn furay duqa ismaamulka Diridhabe Mudane Ibrahim Cusmaan kadibna waxa uu masraxa ku soo dhaweeyay hogaamiyaasha dhaqanka ee labadan qowmiyadood wada hadallo ay ka soo bixeen heshiisyo dhowra markii la galay kadib ayaa waxa noo suuro gashay in aanu waraysi la yeelano ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim waxaan ugu horeyn weydiinay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkani ka soo baxay shirkan aan maanta galnay waxa laga hadlay muhiimaddu wuxuu ahaa sidii nabadgelyada loo sugi lahaa sidii labadan shacab ee wala dhashay Oromada iyo Soomaalidu ee si nabadgelyo ku wada noolaan lahaayeen qaabkii loo gali lahaa iyo shirku ku saabsanaa in nabad loo heli lahaa tiina waa ku heshiin isku dhacyada waxa sababay sidoo abaagaruhu sheegay dad ka xun horumarka iyo maamulka iyo wala noolaashaha labadan shacab ee walaalaha dad ka xun inay waxani ka dambeeyaan iyaan qiimeeyno isla aragnay marka waxaana sidii looga hortagi lahaa nin walba inuu dadkiisii uu la hadlo uu nabadda ugu baaqo uu mas'uuliyadda ummadiisa uu qaado iyaan ku heshiinay halka waxaan baaq uga daraynaa guud ahaan Soomaali iyo Oromo dadkan islaynaya inay nabadda qaataan saaca laga bilaabo barbaarta iyo qayro inay wala shaqeeyaan wixii dhibta wada inay hay'adaha ammaanka ay la socodsiiyaan ay u sheegaan annagana in la soo socodsiiyaan iyo xaq baaq uga daraynaa dadka waxaan ugu talinay axadda ayaan ballan leenahay inaan axadda booqano dadka dhanka Soomaali dadka ka barakacay dhankii Oromadaba qaabkii loo celin lahaa inaan ka wala hadalno oo nin walba gurigiisa ku laamo وماشي ودقنا كل عام كل شيء إن شاء الله. شر وان يلنا النايم كباقنا وانودنا هنا نبض قادان ساعة لقى بلاو نبضنا وانسكوب جينا إنه ولا شقيان أو قعنت سكوت صارنا ودتك هديت ولا سكوت طلابه ولا شقيسته ونبضك ولا نولاده وانكوت لجنا إن شاء الله. تحدى وحي كبلاونا وان قالين. غفرين تنودر يوم نبض لقاته نبض لجود دالو قعمها على سقبصده ولا لماذا واحد بكوين إسلام لماذا يا كحجة dad islaam ah wala nahay dad walaal ah nahay dad jaar ah nahay saddexdiiba uu naga dhaxeeyaa marka waxaan ugu baaqayaa in walaalnimada la eego in islaamnimada la eego in la isdhaxmado si nabadgelyo oo nabadda laga shaqeeyo qofkii dhibta wadana inta la in muxuu ahaa sharciga loo soo gudbiyo oo hay'adaha ammaanka lagala shaqeeyo ayaan faraynaa geestiisa Abdul Malik Yunis waa abaagadaga Oromada waxaan isagana weydiinay mas'uuliyadda kaalintooda saaran iyo waliba kulankan waxyaabihii ay ku soo bandhigeen arrawnida waligalle mangudoon Soomaali TV akkasuma mangudoon Oromo naannoo diree dhawaatana khatamaa jirtu waxaan maanta ku heshiinay ogaaska iyo abaagadayaasha oo aan wada falanqaynay dhibka ka jira Diridhabe iyo sidii looga bixi lahaa waxaan isla meel dhignay inaan dhayno dhaawacyadii na kala gaadhay lana isgargaaro heshiiskani waxa uu horseedi nabad annagoo hadda subaxa waxaan booqanaynaa dadkii ku waxyeeloobay isku dhacyada dhammaanteen waa inaan ka shaqaynaa nabadda aan ku heshiinay ogaaska abaagadayaasha barbaarta qayro iyo bulshada qaybeega kala duwanba Ibrahim Yusuf waa hogaanka nabadgelyada ismaamulkeena Diridhabe isagoo la hadlay warbaahinta ismaamulkeena Diridhabe waxa uu xaqiijiyay in isku dhacyada inta badan u dhaxeeya qowmiyadda Soomaalida iyo Oromada ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dad dana gaar ah leh oo ay u cuntameeyeen nabadgelyada iyo horumarka ka socda ismaamulkeena Diridhabe ka xafiiska nabadgelyada ahaan ay wadaan dabagallo xoogan oo qaarkood lagu qabtay isla markaasina gacanta lagu dhigay waxaana sheegay inay faraha kala baxaan cid waliba qaska laga dhex abuurayo shacabka waxaan arintan doonaynaa in gudbiyo muddadan dhaaftay mataqaanaa dhibaato ka dhacday magaaladeena Diridhabe gaar ahaan magaalada oo dhan maahin laakiin xaafadaha mataqaanaa Ibar 9 iyo Ibar 1 iyo xaafadaha Ibar 2 meelihii goobihii aan xuduud la leenahay dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City iyo degmada Shiniile dhibaatooyin baa ka dhacday marka dhibaatadaas inta badan dad baa ku dhintay guryaha ku gubtay iyo dad baa ku dhaawacmay iyo dad baa ku barakacay marka ummadan meeshan ku nool saa loo ogsoon yahay inta badan waa qowmiyadaha Oromo iyo Soomaalida weey dadkana waa dad walaalo wiil iyo abti weey dad ma taqaana kala maarmaya ma waa dad wada nool
marka inay gartaan baa loo baahan yahay dadkan dad mataqaanaa la gumaysan jiray wey dad mataqaanaa wada noolaa intaa sanadoodna degmooyin ama deegaankooguna mid yahay magaaladana waa la wada degan yahay marka waxaa loo baahan yahay in dadkan iyaku mataqaanaa dhibaatada iminka dhexdooda laga abuurayo inay gartaan inay mataqaanaa iska qabtaan cidda dhibaatada dhex wado marka gaar ahaan dhalinyaradu xagga barbaarta iyo qayroogii xagga dhalinyarada ahaan in isfahmaan baa loo baahan yahay inta badan waxaa la kulanay odayaal dhaqmeedkii ugaaskii abaagadaagii odayaashii iyo haweenkii iyo dhalinyaradii waa la shirnay aduu wixii kaalintooda xagga ku cadan inta badan aduu way ka ciyaareen baan oran karnaa laakiin xaggeega weli lama gaadhsiin marka insha allah annaguna maamul ahaan iyo annagoo la kaashanayno bulshada inaan mataqaanaa nabadda ka dhalino kolley nabaddu waxaa u fiican tahay bulshada wey nabaddana waxaa ilaalin karaa waa shacabka marka shacabku inay nabadooda ilaaliyaan baa loo baahan yahay gaar ahaan dadkana dad wax kala haysta ma ahin dad mataqaanaa waxay isku dirirayaan kii dilayo kii la dilayana sababta isku dilayaanna lama garanayo markaan ka hadal marka dad islaan isku diina isku mataqaanaa dhaqana haddana mataqaanaa isku deegaan wey marka intaa la garto walaalnimadii hore lagu celiyo taasaa loo baahan yahay maanta saa loo ogsoon yahay magaalada Dirdhaba labadii qowmiyadeed mataqaanaa ee maamulaysa waa iyaka laakiin waxaa lagu farta fiiqi jiray mataqaanaa dadkan dad ma maamuli karaan iyakuba isma maamuli karaan baa la oran jiray taas inaan isku markhaati furnana maahin marka inaan mataqaanaa aan wadankeena maamuli karno dadkeena maamuli karo inaan garanno wey inta badan ajendaha waxaa mataqaanaa dhexda fitinka wado waa dad mataqaanaa isbedelkan iminka ka muuqda Ethiopia iyo isbedelkan deegaanka ka jiro ay mataqaanaa doonayn wey waxa dadka fitinka ka dhex wado marka dadkaasna inaan ama maalqabo inaan noqdaan ama kuwa siyaasadda ku dhex jira ha noqdaan idii fitinka wado inay iska qabtaan runtana u sheegaan baa loo baahan yahay gaar ahaan dhalinyarada waxaan fariinta u gudbinayaa baritoole dhalinyarada annagana badilaysa wey wadanka ama maamulaysa wey marka mataqaanaa inay waqtigeeda ku lumiyaan maahin dhibaatadan iminka ka socoto marka inay waxbarashadoodii si fiican u adkaystaan noloshooda iminka dadkeena inta badan waa dad masaakiina marka dhibta markay dhacdo waxyaalo badan baa dhib la kulmi karaa marka taa darteed inay dadkuna dhexda u xidhaan walaaltinimadii hore la soo celiyo dadkii barakacay guryahooda lagu soo celiyo dadkii mataqaanaa in nabad laga shaqeeyaa loo baahan yahay marka fariinteeda taasaan u gudbinayaa dadkan kale mataqaanaa qalalaxsa waxaan u fariinteeda u gudbinayaa kolley dowladdu dabagal bay ku jirtaa qaar aan qabanno way jiraan qaar haddana mataqaanaa dabagal lagu sameynaya jiray kolley sharci baan adeegsanaynaa sharciga sarreynta sharcigaan horkeeni doonaa marka taa haddana dabka iyaku ay shideen kolley iyakuna mataqaanaa way wada gubanayaan waa la wada guban karaa marka inta badan laakiin waxaa la yidhahdaa dabka munaafiqu shido muumin baa ku gubtaa iminka dadku iyaku ay bilaabeen iyay dadkan masaakiinta ay ku gubanayaan marka taa darteed inay waxyaalaha inka iska ilaaliyaan baan fariinteeda u gudbinaya ugu dambeyn aabba muuse moygaag oo ka mid ah duqeyda soomaalida u matalaysa shirkan ayaan waxaan wax ka weydiinay fikradii shirkani ay ka dhiibteen iyo muhiimadda uu ku fadhiyo shirkani maantaan qabanay oo jimco ah oo uu noo qabtay maamulka Dirdhaba aad buu u wanaagsan yahay waxaa laga hadlay khilaafka dadka walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada ee diribooda degan oo gelin dhibaato badan ay ka socotay iyo maanta lagu soo afjaray halkan alxamdulillah si fiican baa loo lafajaray waa la gaadhay meel muhiim ah iyo maanta la gaadhay iyadoo la u dhan yihiin ogaaskii abaagarihii odayadii garaadka lahaa ay u dhan yihiin maanta si ballaaran baa looga dooday alxamdulillah muddo muhiimana way ka soo baxayaan sidaan filayno markaas waxaa laga xanuunstay dhibaatada soo noqonaysa ayaa laga xanuunstay wax walbana waxay dhammaadaan marka ilaahay qadaro ayay dhammaadaan maanta waxaan ku rajaynahay inay dhammaato oo si muddo wanaagsan ay ka soo baxaan nabad waartana ay ka soo baxdo ayaan rajaynaynaa waxaa ka soo baxay shirkani arrin muhiima oo muqadasa ayaa ka soo baxday arrintaasi waxa weeyeen wax dambe inayna dhicin oo ka dhex dhacda labada qowmeed ee walaalaha weligoodna wada noolaa wax dambe inayna qofna dhaawacmin qofna dhimanin iyaa la isla qaatay guntigan dhiisha la iskaga dhigo iyaa la isla qaatay markaa waa arrinta ugu muhiimsan maamul ahaan iyo ogaas abaagade odayaashoodii culamo diinkii looma kala maqnayn
waxaana ka soo baxay wax dhaxal oo wax ka oolaya ka soo baxan leen wallaahi xaqiiqiyan waxa weeyaan waddankeena Itoobiya waxa ka dhacay isbedel ballaaran waa la wada ogyahay isbedel ka soo dhacay baan dib ay leedahay aniguna oranayna halka bay ka soo baxday halka ay ka bilaabantay ana oranaynin oo taa gadaal loo eegayo gadaal baa loo eegi laakiin dibta ballaaran siyaasadda waddanka isbedelkiisa bay u sababa in labada qowmiyad weligood isku dhicin in isku dhacaan ayaa u sababa taana alxamdulillah maanta la soo afjaray waa laga wada hadlay waxaana lagu heshiiyey maanta laga bilaabo wixii dhaca in aanan la odhan Oromo iyo Soomaali in aanan la odhan hebel iyo hebel la yiraahdo ayaa lagu heshiiyey waxyaabo orkay ka soo baxay waxa kamid ah wixii maanta dhacay inaan qabiil laga dhigin oo qof laga dhigo laba qof laga dhigo lana soo qabto dhinaca ay wax ka dhacaan ee wax gacanta geysatay ay iyadu soo qabato hay'adaha ammaankana ay u dhiibto iyo la isla qaatay marka anigu waxaan leeyahay maanta waxa dhamaan waayaan bal arrin haday dhamaan weyda baa la yiri amba waxba ku siyaada ah amba waxba ka dhiman maanta wixii ka dhinaa waa la dhameeyay bay la taani waa fikradayda alxamdulillah waana lagu guuleysanayaa shirkani waa bilow ku karin ku ekaanaya maaha hadda ballan baan qabsanay axad ah iyaan qabsanay dhalinyartii qayrada waa la shiri gaar bay ula shireen abagaraha iyo odayaasha la shirayaan dhinacan kale ogaaska iyo odayaashiisa waxay la shirayaan dhalinyartii barbaarta iyo la shirayaan kadib iyagoo la soo bisleeyay oo la aad loo waaniyay oo la soo bisleeyay iyo meel la isku keenay had yeer shirkani maanta waa bilay isdaba joog shirar badan baa ka dambeyn doona hadday ka dambeyn waayaan mirkaa tade kuma fillo waa dhalinyarta waxaan baan ku direynaa anagu dambeyntii baa ku direysaa labada qowmiyadood iyo dhamaanba bulshada reer Dirdhabe maxad baa ku dirlaa baaq waxaan u dirayaa kow Dirdhaba ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada ee kuwada nool iyo meelaha kala Soomaalida iyo Oromada ay wada taalo dhammaan baaq waxaan u diray baaq nabadeed baan u dirayaa waxaan leeyahay dad walaalaha tihiin isku dhiiga isku dhaqana wada shaqaysta weligood wada noolaa waxaan leenahay baaq nabadeed baan u diraynaa baaqa nabadeed waxa weeyeen inaad gacmaha isqabsataan inaan waxaan ka bilaabaynaa baaqa waxaan ka bilaabayaa dhalinyarada qayrooda iyo dhalinyarada barbaarta inay gacmaha isqabsadaan dantooda inay ka shaqeeyaan horumarka inay ka shaqeeyaan mustaqbalkooda inay ka shaqeeyaan waxbarashadooda inay ka shaqeeyaan inay iska daayaan wixii kale waxaan faa'iido u tarayn inay iska daayaan dhammaanna waxaan leenahay labada qowmiyadood halkay doonaan ku noolaadaan nabad baan inagu baaqaynaa Soomaaliya oo dhan waa walaal Ilaahay walaadnimo Ilaahay waa keenay dadka dhibta dhaqo Ilaahay ka qabto shaytaan dhibta ka qabto Ilaahay ka qabto dawladda Ilaahay ka gaaro labada shacab ku joogo quraad Allah isku mariyo quraad Allah isku mariyo oo Ilaahay noolas amin salaam noolas amin subhana rabbika rabbil alamin inti tokkon politikam للبات بدلال ما نويجا جنين للبات ربي نوادمته وجنة وربي يادمته بيتر دنواغل وربي يتر دنواغل إلمان كأنه ربي نوادر